cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa maanta si rasmiya u deefuray ololaha talaalka cudurka dabaysha oo ka dhici doona guud ahaanba somalilan. madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu bulshada ugu baaqay gaar ahaan waalidiinta inay ubadkooga talaalaan si looga hortago loola cidhibtiro cudurka dabaysha oo aafo qaran ku ah guud ahaanba afrika. alxamdulilah wasiirka agaasimaha guud labada hay-adood ee UNICEF iyo WHO iyo dhammaan shaqaalaha caafimaadka ku hawlan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib idiin sheegi maayo muhiimadda oo carruurteenna u leeyahay talaalku gaar ahaan talaalkan dabaysha ah ee maanta aynu daahfurayno waana waajib qaran oo dhammaanteedna saaran runtii inaynu kala dagaalanno carruurteenna xanuunka dabaysha la yidhaahdo. ololahan waxa uu taagan yahay in ilmo walba oo Soomaaliland ku nool inuu xaqiisa helo oo gaadho talaalkaasi gaadho. waxaan munaasabadani uga faa'iideysanayeen waalidiinta, macallimiinta, bulshada guud ahaan inay ku gacan siiyaan howlwadeennada caafimaadka ee guryaha ugu imanaya ee kharash ku baxayana waxay naga caawinaya hay'adaha WHO iyo UNICEF. sidaa darteed waa inay bulshada dhammaan aynu ugu midownaa si aynu maartay hawshaa ugu garabgari lahayn wasaaraddeena caafimaadka runtii iyo shaqaalaheeda. marka la eego haddaba dabargoynta cudurka dabaysha ee Somaliland waxaa halkan bulshada Somaliland iyo caalamkaba uga cadaynaynaa in dowladda Somaliland ay ka go'an tahay la barbar taagan tahay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha naga caawiyaba inay hawshaasi si habboon oo u fusho aynu ka dabar jarnana dhammaan cudurka dabaysha iyo cudurrada kale lamida faafaba inay Somaliland ka dabar jarno waxa ka go'an xukuumadda Somaliland inay inuu garab taagan tahay ay niguna ducaynayso ilaahayna xilka inagu asuro dhammaanteen. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxda labada hay'adood ee WHO iyo UNICEF agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasime xigeenada howlwadeennada kale caafimaadka iyo shaqaalaha ka howlgelaya ololahan dabartirka xanuunka dabaysha dhammaantiinba aad iyo aad baan idigu mahadnaqaynaa. marka hore wasaaradda caafimaadku waxa u xil saaran tahay waxa weeye dejinta siyaasadaha lagu hagayo ama ha noqoto horumarin ama ha noqoto joogtayn ama ha noqoto ka hortagga xanuunada faafa ama kuwan faafinba. sidoo kale wasaaradda caafimaadku waxay dagaal badan kula jirtaa xanuunada faafa oo ugu horeyso xanuunka booliyada oo sida hore loo sheegay si gaara u saameeya carruurteenna oo ah mustaqbalkeenna. si markaa arrintaa wax looga qabto wasaaradda caafimaadku si joogto ah waxay u wadaa talaalka lagu dabartirayo cudurka booliyada oo sida agaasimuhu sheegay aan ahaynun imiga ololahaynu qaadana ee mid ka socda xarumaha caafimaadka ah. haddaan dib ugu noqdo 12 sano ka hor Somaliland waxaa laga cidhibtiray xanuunka booliyada laakiin Somaliland ma aha jasiirad gaar u taala laakiin waxa xiriir ay la leedahay isku socod dadka ah wadamada jaarkeena. sidii hore loo sheegay saddexdii bilood u dambeysay waxa la arkay ilaa 3 xaaladood oo xanuunka booliyada ah oo lagu arkay degmooyinka Buuhoodle iyo Laascaanood. taasi markaa waxay walwal gelisay wasaaradda caafimaadka oo ah in halka uu xanuunkaasi ka dilaacay ama lagu arkay xaaladahaasi aanu soo dhaafin.